xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar ayuu ka dhacay kulan gaar ah oo uu gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Axmed Duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish uu kula qaatay wafdi horkacaya madaxa hay'adda bisha cas ee Turkiga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Master Mustafa Sahin. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa dhinaca arrimaha bulshada iyagoona arrimaha looga hadlay ay ugu muhiimsanaayeen inta kulankan uu socday horumarinta daryeelka bulshada gaar ahaan quudinta dadka barakacayaasha ah iyo qoysaska danta yar. waxaa kale oo ay wax iska weydiiyeen inta uu socday ee kulankan dhinacyada u dhaxeeyay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta howlaha kor loogu qaadayo bilic soo celinta caasimadda Muqdisho. kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxa hay'adda bisha cas ee Turkiga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Master Mustafa isagoona sheegay in hay'addu ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada arrimaha xal waara loogu gaarayo barakacayaasha. Türk Kızılayı Delegasyon Başkanı bugün burada Türk Kızılayı olarak Mogadishu Belediyesi'ni ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretimizin amacı Mogadishu'da Somali halkına Türk Kızılayı olarak yapacağımız faaliyetleri beyefendiyle, Mogadishu Belediyesi ile istişare etmek. Somali'de, Mogadishu'da 2011'den beri faaliyet gösteren Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini 2020 yılı içerisinde de devam ettireceğiz. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Axmed Duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabihii ay isla meel dhigeen madaxa hay'adda bisha cas ee dalka Turkiga. maadaama duruufo iyo macluulay waxyaabo noocaas hadda evaluation la sameeyay lagu ogaaday ayay waxay sameynayaan wixii karaankooda ah oo ay u horeyso jiko dadka baahan loogu kariyo cunto. arintaas waxaa kala shaqeyn doona maamulka gobolka Banaadir. isla markaas waxaa jiri doona gaadiid cuntada marka la diyaariyo loogu qaadayo goobaha ay degan yihiin dadka baahan oo cuntadaas u baahan. taasi marka waxay qayb ka tahay daryeelka bulshada taagta daran ee ku nool magaalada Muqdisho. bulshadaasi waxay noqon karaan barakacayaal, waxay noqon karaan dad meesha aan barakac ku ahayn laakiin sidoo kale danyar ah. marka walaalaha Turkiga iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya waxay u istaagi doonaan haddii alla idmo in dadka Soomaaliyeed gargaarka u baahan la gargaaro. waxa alla wixii kale aan u aragnay in laga maarmaan ay noo tahay ama bulshadeena ay u tahana waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin aan u gudbin doono haddii